بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. kusoo dhawaada xalqadeenan maanta oo aynu ku sharxi doono barnaamijkan weyn ee Eagle Gate. barnaamijkan oo anigu kugula talinaya inaad u isticmaasho downloadinka, aniguna waan tijaabiyey boqolkiiba boqol si qurux badan ayuu u shaqeynayaa sidii uu shaqeyn jiray internet download managerku, waxnaba kagama duwana. waxa uu ku fiican yahay barnaamijkan in dhammaan faylasha oo dhan uu kusoo download gareynayo intii uu download gareyn jiray Eagle Gate oo ku jiraan fiidiyoyadii isla markaana ay ku jiraan faylashii iyo wax kasta. waxaynu si aanu inoogu dheeraan xalqada waxaynu guda galaynaa sharaxa barnaamijka. marka ugu horeysa waxaad u baahan tahay in barnaamijka aad kasoo download gareysto linkigiisa rasmiga ah oo aan kuu dhigi doono videoga hoostiisa barta description-ka markasta iyo bloggeena labadaba aad ka helayso. markaad ku dhufato website-ka kasoo download garee adoo ku dhufanaya download, waa website-kiisii rasmiga ah. markaad soo download gareyso barnaamijka noocan kugu yimaado, waxaan kugula talinayaa in markiiba aad ka saarto internet download manager-ka, sababtoo ah barnaamijyada isku shaqada badanaa ma wada shaqeeyaan, way isdiidaan. waxaad aragtaa internet download manager-ka inuu igu jiro isagoo mashaakilkaas haystaan serialka ah. waxaynu isticmaalnaa barnaamijkii iObit installer ee lagaga saari jiray barnaamijyada marka la rabo si dhammaystiran looga saaro. dabcan hore waxaan soo tilmaamnay barnaamijyada markaad ka saareyso waxaad computerkaaga kusii hadha registrigiisa faylal yaryar, kuwaas oo kuu diidaya in barnaamij lamid ah aad ku download gareyso computerkaaga ood ku install gareyso ood ku isticmaasho. oo aan uga jeeda macnaa haddii internet download manager uu kugu jiro kan kale lamidka ah uu ku yara diidayaa ama mashaakil baa ku yara imanaya. internet download manager baan ku dhufanaya, barnaamijka linkigiisa isna hoostaad ka helaysaa, sharaxiisana xalqad hore aan kaga soo hadalnay. uninstall baynu oranaa, kadib uninstall powerful scan. waxaad arki doontaa inuu soo qaban doono faylal ciida ka fara badan oo dabcan ciida kama fara badna balse waa qiyaas aan ku qiyaasayo faylal aad u fara badan oo ka buuxa registrigaaga, kuwaas oo kuu diidaya in barnaamijkan si qurux badan uga baxo ama si fiican. waxaad aragtaa waxaas oo fayla ayuu kaga tagaa. adigu markaad uninstall tiraahdo keliyata waxaad moodaa inuu ka baxay, laakiin faylashaas ayuu kaga tegayaa. laakiin barnaamijkan ayaa kuu suuro gelinaya inuu kashifo faylasha. kadib kaa ugu sarreeyaad ku dhufanaysaa delete baska leedahay yes. xalqadii hore soo aragnay qaabkaasaad uga saaraysaa barnaamij kasta, uma baahnid xataa inaad xalqadii hore doonato maadaama imika waad aragtay qaabka looga saarayo barnaamijka. kadibna okay baynu siinaa. waxaan kugula talinayaa sidoo kale markaad ka saarto inaad restart gareyso computerkaaga si looga sii saaro faylashii kale IDM-ka ee si remaining fileska ah oo barnaamijka ku horreeya. markaad restart gareyso ayaan ka saaraya kuwa kale. kadib waan ku install gareynaa Eagle Gate, yes baan leenahay. kadibna next install sidii caadiga ahayd, waana iska sugaysaa intuu installingku dhamaanayo. marka uu dhamaado waxaan siinaa finish, kadibna waxaad arkaysaa barnaamijka inuu kuu soo baxay. markaad dhamayso computerkaaga aad si wanaagsan ugu shubto waxaad arki doontaa inuu browserkaagii defaultiga ah sida Google Chrome ka defaultiga isticmaali jirtay uu kusoo kici doono si automatically ah, kadibna uu extensionka ka dalban doono inaad ku darto. si aad ugu darto kadib halkaa ku dhufo, kadibna more tools, kadibna extensions, kadibna calaamada Eagle Gate ee noocan ah ayaad horteeda enable ku dhufanaysaa. enable haddii uu marka uu kuu soo saaro, haddii uu kuu soo saari waayo linkigan kale aan kuu dhigay videoga hoostiisa ayaad ku dhufanaysaa oo waxaad ku daraysaa extensionka Google Chrome. kadib adoo leh add to Google Chrome, kadibna add extension ayaad leedahay. marka lagu daro waxaad arkaysaa extensionka inuu bartankaaga soo muuqday Eagle Gate. waa qofkii aanu markii hore usoo bixin ayaa habkan isticmaalaya. markaad ku darto Google Chrome-kaaga waxaynu eegaynaa tusaale ahaan hal barnaamij ayaynu soo download gareynaa oo aynu ka eegi doono qaabka bal uu download gareynayo barnaamijku. markaad si fiican ugu hubsato waxaan kaa codsanayaa inaad restart gareyso computerka haddii uu kaa dalbado. haddii uu aanu kaa dalbanna sidii caadiga ahayd aad iskaga isticmaasho. tusaale ahaan aynu barnaamijkaas soo download gareyno barnaamijyada kamid ah
download markaan ku dhufto waxaad arkaysaa sidii IDM-ka oo kale inuu u soo kacayo barnaamijku noocan uu soo kacayo. waa kan le 7zip barnaamijkaas aad soo download garanaysaa .exe kadib okay baan leeyahay. markaan okay siiyo waxaad arkaysaa speed caadi ah oo aad u sareeya inuu ku download garaynayo oo ku dhadhow qiyaas ahaan kii IDM-ka. kaas waa mid ka mid ah barnaamijyada. aynu eegno mid ka mid ah videoyadana. kana waa mid ka mid ah videoyada space-ka. videogan oo kale markaad rabto EagleGet inaad ku download garayso waxaad ku dhufanaysaa kaliya videoga markaad daawanayso saa kugu socdo calaamada yar ee EagleGet. waxaad arkaysaa 17 nooc inuu soo qabtay oo ka mid ah noocyada YouTube-ka oo waliba wada MP4 ah macnaa HD. videoga koowaad MP4 HD tusaalanka 320 pixel aan download gareeyo markiiba ii soo qabanaya videogii iyo inta uu yahay. okay markaan yiraahdo wuu bilaabaya videogii. waad aragtaa iyaduna inuu ku dhadhow yahay qaabkii IDM-ka. xalqadeena maanta intaas ayay ku egtahay. waxaan filayaa inaad ka faa'iidaystay. fadlan ha ilaawin inaad like garayso isla markaana u share garayso asxaabtaada kale si ay faa'iidadu u ballaarato. intaynu ku kulmi doono darsi ka lamid ah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.